dhalinyaradu waxay yaqaanaan moogtahay banooniga iyo kubadda iyo fiirsadaan ama way dheelaan laba kooxood ama laba naadi haday meel ku dheelayaan midna garoonkiisa la joogaa midna garoonkiisi uu ka soo tagay mid kale garoonkiisa kula ciyaaraya ama wadankiisu ka soo tagay wadan kale la joogaa kooxda wadankeeda la joogo ee garoonkeeda lagu ciyaarayo goolkii laga dhaliyo oo qolada martida ay ka dhaliso wad ogtiino laba gool u dhigma saaso ismuso dhalin saas ma wadanka la joogo ama kooxda la joogo oo meesha lagu dheelaayo laba gool u dhigma waxayna yiraahdeen dimuqraadiyadda doorasho la galaya dadkii guuleysta oo meesha loo batay ayaa xukumayaan saas miya saas ma soo dejiseen oo isku waafaqsan yahay saas aan anagu sameeynaa dastuur noo degsan oo sheegaya aqlabiyadu meesha ay marto dheeridu meesha ay marto ayaa xukumaysa haye garoonkaas marka ayaga samaystay waa u imaanay waxa dhaanay waxba kama qabno garoonkiina idin kula dheelaynaa shucuubta muslimka soo in la isdoorto maaha hayaan isdoorano waa la isdoortay meel kastoo doorasho ay ka dhacdo waxay dadku u badanayaan dadka wada dhaqankooda iyo diintooda iyo sharaftooda iyo wadaniyadooda iyo wadankooda qiimihiisa xisbiga ku socda ayaa codka loogu shubaa waa shucuubta muslimka natiijadii markay soo baxday waa lagu dhawaaqay waxa codka loo batay dadka oo u ololeeya islaamka iyo dhaqankiisa iyo wanaaga kooxdii kale waa laga badiyay soo inay u daayaan lama rabin oo dhawaayahay dimuqraadiyadu waxa la isku ogaa xagga loo badan yahay inay hogaamiyaan ilaan hoos waxa ku jira luqada carabiga naxwadan akhrinaay waxa la yiraahdo ضمير مستتر تقديره أنا وحل هذا جرت دور الشدن مركي لجلايو لما ربوا أغلبية دتكو أي وضع أركان إنه يصاب بحذا إن لودا لما ربوا وحال ربا هلا يصدرته لكن وإن نتيجته أي نقطة متك جعله أيوة أي ربين متك الشعب كورا معه هل كان سحكوا يضمارن أما كو قرصن ضمير مستتر تقديره كي أنا جان ربي هدي كي أنا جان ربي وصوب بحوايو أو متك لو صابه يمجرته هذين كوجر محاسمينه ilmuhu markay xanaaqaan banooniga maxay sameeyaan birisiisiib ma aha biraysiisiibaan markaas Algeria biraha ka siisiibeen Masar ay ka siisiibeen Hamas ay u siisiibeen iyo Falastiin meel kasta oo ay ku guuleystaan dadka hogaaminta fiican leh waxay leeyihiin guushaas maan rabin laakiin mid ayaga ay rabaan markuu guuleysto wuxuu keenayaa 99.9 qof la tartamayna male waxay leeyihiin halkan dimuqraadiya ayaa ka xasish intee dimuqraadiya joogta hal qof tartamay halkii ku wada shubtay wuu soo baxay marka waa la isfahamay hada alxamdulillah marka dhalinyaradu say wax iglinta u wadeen waa la is wada fahmay marka waxa marka la rabaa dhalinyaradan wax baratay ummadooda inayna ka sugin cid kale inay wax u qabato hada alxamdulillah waa lagu sii socdaa hadda mugtay jiilkan soo socda rajo fiican waxaan qabnaa mustaqbalka beledkan Soomaaliya inuu noqdo beledkaas taariikhda dheer kula geeska Afrika ee qiimaha iyo sharafta leh ee dadkiisu ay yihiin dad firfircoon oo islaamka qiimo iyo taariikh ku leh cadow iyo makri loo maleegay god dheer lagu riday loogu talagalay inaysan waligood ka soo bixin laakiin waa dad fahmo badan oo way fahmeen godka lagu riday sida uu yahay